السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركلا إيو لبرو maantana waxaynu wada baranaynaa aasaaska xisaabta waxaynu u qaybin doonaa casharadan dhowr qaybood qaybtan koobaad waxaynu ku soo qaadan doonaa nambarada iyo marka hore waxaynu isla baran doonaa mid kastaaba positionku ku fadhiyo waxa loo yaqaano aynu ku horeyno lambarada yaryar ee keligooda waxa weeye waa lambarka kelikelida ah oo sida zeroga oneka iyo tuuga ilaa iyo sagaalka waa wixii laba lambar ka yar waa markay keli yihiin ama markaad si kale u eegtid lambarada keligood markaad qortid sida hal kursi oo kale ku fadhiya kursi kaliya ku fadhiya kana kursi kaliya ku fadhiya waa marka maxaynu naqaanaa waxaan afka ingiriiska waxaa lagu yidhahdaa ones laakiin afkeena soomaaligana wuxuu noqonayaa koobaad waa lambarada koobaadka hadee koobaadka lambaradu markay laba kursi markaa ku fadhisaan sidan oo kale ee toban oo kale imika tobanku waxa weeye halkaa kana midbuu ku fadhiyaa kana midbuu ku fadhiyaa 11 waa laba markaa 12 ilaa iyo 20 soddon ilaa iyo 9 kaasina waa maxay waa 10 luu noqonayaa markuu saddex kursi ku fadhiyana waa 100 ilaa iyo 9 iyo ilaa iyo 999 kaasina waa 100 waa sidaa dee aad ka garan kartaan 100 kunkiina waxa weeye waa kun waa 4 position buu ku fadhiyaa 4 ayuu ku fadhiyaa waxa weeye waa 100 saasay u soconaysaa marka taas waxaynu kaga gudbaynaa waa isla fahankii nambaradii iyo positionkii fadhiyeen waxa loo yaqaano haddana waxaynu u sii gudbaynaa isku darka ama kala jaridda nambarada yaryar ama nambarada koobaadka sida zeroga ilaa iyo sagaalka inagoo isticmaalayna si aynu u sii fahanno sida isku darkoodana u yimid isticmaalka waxa loo yaqaano number line-ka ama xariiqda loo yaqaano xariiqda nambarada xariiqda nambaradu waa maxay haddaba waxa weeye waa xariiqdan dhexda ayaa halkaas waxay ku leedahay zeroga wixii midig ka xigana waa lambaro 1 2 3 waa lambaro positive ama togan dhinaca bidix haddaad uga kacdo zerogana waa 1 waa -1 -2 -3 ilaa sii socodka waxa weeye waa lambaro 10 marka taas ayaa la yidhahdaa number line-ka marka number line-kaas inagoo ku isticmaalayna lambarada 1 iyo 2 ilaa iyo 9 u dhexeeya ee aynu hore u nidhi waxaa la yidhahdaa koobaad ama oneska ayaynu isku daraynaa ama kala jaraynaa aynu ku baraynaa taas isku darkii ayaa kala jaradii marka tusaale ahaan labo very simple tusaale soo qaadanaa 2 iyo 3 marka la isku darayo inagoo isticmaalayna number line-kaas ayaynu tusaale u soo qaadanaynaa maxay noqonaysaa marka number line-kii baad halkan ku qoranaysaa dhexdii maxaad ku qoratay waa 0 wax lambarka ugu horeed ku qoranaysaa waxa weeye waa lambarka koobaad oo ah 2 waa maxay 2gani waa plus markaas waa 2 waa positive number negative ma wato marka that means midig buu uga kacayaa zerogii marka waa imisa waa 2 unit ama 2 tallaabo 1 iyo 2 marka lambarkii 2geena waa kaasa maxaa lagu darayaa lambarkii 2ga waa 3gan lagu darayaa marka wax lagu darayo waxa weeye waa mar walba waa midigta ayuu u baxayaa waynu sidaan halkan u sheegnay positive-ku waa midigta u baxaa negative-kuna bidixda marka maadaama 3 lagu darayo 3gan 2ga halkeena 2ga labadii tallaabo aynu 2ga joognay ayaa 3 tallaabo ama 3 unit lagu darayaa marka oo ah 1 2 3 haddaba halkaas muxuu noqday lambarkaas halkaas u istaagay soo maaha muxuu yahay marka maadaama kani 2 ahaa kana muxuu noqonayaa waa 3 kana muxuu noqonayaa waa 4 kana muxuu noqonayaa waa 5 marka waa maxay waa 5 halka maxaynu ku ogaanay 2 plus 3 inay tahay 5 waa ka ansarkeeni markaa waa inagoo isticmaalayna number unitkaas number line-ka inagoo isticmaalayna ayaynu halkaa 5 ku helnay iminkana waxaanu soo qaadanaynaa tusaale kale oo ah inagoo isla number line-ka isticmaalayna waa 6 plus 3 number 6 plus 3 idinkuna isku daya joojista haddaad doonaysaan inaad igala shaqaysaan anna markaan wado number line-kii baad
sawranaysaa waa kaas waxa weeye waa 0 6 markaa 6 kanaad ku bilaabaysaa markaa oo ah 6 unit xaguu markaa muxuu yahay waa plus markaa midigtu uga kacaya halkan marka waa maxay 1 2 3 4 5 6 lixdii markaa waaba kaa right saddex waad ku daraysaa marka saddexdii lagu daraya maxay 1 2 3 marka kan hadduu 6 yahay kana waa 7 kana waa 8 kana waa 9 kan lambarka ansarkeedna waa maxay waa 6 plus 3 waxay la mid noqotay 9 saasaad 9kii ku helaysaa iminka waxaynu u gudbaynaa iyadoo weli additionkii ah laakiin lambarka ugu horeeya ayaynu waxaanu ka dhigaynaa -4 ayaynu waxaynu ku darsanaynaa isna 5 haddii iminka taasoo kale lagu siiyo -4 plus 5 haddii lagu yidhaahdo maxay noqonaysaa lambar linekii baad sidiiba u samaysanaysaa waxaad leedahay lambar linekii halkan waa 0giina halkaa ku samayso -4 markaa waa 4 unit maxaanu nidhi lambarku hadduu yahay minus waxa weeye waa dhinacan bidixda ayuu 0 uga dhaqaaqayaa marka waxay 1 2 3 4 because waa afartan waa 4 tallaabo ama 4 unit marka waa maxay waa 4ka waa ka oo ah minus halkaasaynu joognaa markaa maxaa lagu darayaa markaa laakiin 5ku waa maxay waa positive halkaa aynu joogno haddaba haddii maadaama numberka lagu darayaa uu yahay 5 oo plus uu yahay waa inuu markaa u dhaqaaqaa dhinacan midigta marka plus numberku markuu plus yahay waxaad u dhaqaaqaysaa midig marka uu minus yahayna waxaad uga dhaqaaqaysaa lambarkaad ku daraysid aad ka jaraysid waa bidix halka aad joogto ayaad marba ku dhaqaaqaysaa marka halkan markaynu joognay aanu ku bilaabaynay -4ka 0ga ayaynu bidix uga dhaqaaqaynay waayo waxay la mid tahay -4kana waa adoo yidhaahdaa waa adoo halkan yidhaahda for example oo kale 0 -4 yidhaahda 0gan joogo -4 baan u dhaqaaqay marka minus waa bidixda baan u dhaqaaqday laakiin halkan waa maxay waa -4ka ayaad joogtay marka plus 5ka marka midig baad uga dhaqaaqaysaa okay waa imisa unit 5 baad u dhaqaaqaysaa marka 1 2 3 4 iyo 5 oo halkaas haddaba kan muxuu noqday marka maadaama halkan 0 ahaa kan muxuu noqonayaa 1 marka -4 plus 5 waxay la mid noqotay 1 waxay kaloo la simi tahay waa inagoon idhaahnaa ama halkan baynu ku qoranaynaba waxay la mid tahay waa adoo u qora oo yidhaahda 5kan haddaad soo horraysiiso maadaama pluskii wato oo -4 ah marka taasina waa isku mid waa 5 -4 iyo -4 plus 5 waa isku mid waxaad ka arkaysaa inay isku mid tahay haddii aynu san u qoranno waayo xaggaynu ka bilaabaynaa 5kaynu ka bilaabaynaa marka 5kii haddaynu ka bilaabno 0gaynu midig uga soo dhaqaaqaynaa marka waa maxay 1 2 3 4 5 ayaynu joognaa marka halkaa 5kaasaynu joognaa marka -4 baynu nidhi waa inaynu 4 nambar dib u soo noqonnaa marka waa maadaama minus yahay haddaba halkan baynu joognaa soo maaha waa inaynu dib u soo noqonnaa bidixda u soo noqonnaa marka waa maxay 4 unit 1 2 3 4 xaggaynu ku soo dhacnay waa halkaynu hore u joognay oo ah 1kii marka taasina waa 1 marka halka waxaa ka cad inay isku mid yihiin haddaba maanta intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa casharkeennii ahaa nambarka kastaaba positionka uu leeyahay iyo waxa loo yaqaano iyo adeegsiga number lineka marka aynu isku dardaraynay nambarada yaryar tanna waxay naga anfici doontaa casharadeenna soo socda haddaba ha ilaawin inaad liketa iyo subscribe-taba saarto wixii aad su-aal qabtana aad commentka ku reebto adoo raalliya fadlan la wadaag dadka kale si ay iyana u bartaan ama carruurtooda uga sii faa'iideeyaan beysiga xisaabta iyo sida nambarada yaryar la isugu daro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu